baarlamaankana waxaan leeyahay raadiya dad isku wadi karaya xaaladan adag ee labada gole iyo cusaybkooda cid aqoon u leh la raadiyo oo lagu doorto bal aqoon yaa u leeyahay isku wadi karaya masaladaas in la dhalaaliyo waan arkaya qodobka labaad doorashadani doorashooyinka hore way ka kulushahay way ka lacag badan tahay way ka lagdin badan tahay waa xaajo adag weeye waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada yuuna noqonin qiimayntu iyo kaambeynka socdaay hebel muxuu lacag haystaa iyo codkii meequ ku rabaa ee ha noqoto qofka intii lala fadhiisto in la qiimeeyo lana war qofkaani muxuu soo kordhin karaa muxuu qabanaya ama ha noqdo mid jooga ama ha noqdo mid cusub oo imanaya ama ha noqdo mid hore u joogi jiray waxay u baahan tahay in miisaan la saaro qofka oo qofkan capacity-giisa iyo waxqabadkiisa iyo wuxuu soo kordhinaya ee laga taxadaro oo laga cararo masalada lacagta inay noqoto qiimaha wax lagu qiimeynaya ama miisaanka wax lagu cabirayaa inay lacag noqoto aad baan uga digayaa waa arrin Soomaalinimada ku xun waa arrin dawladnimada dhib ku ah waa arrin natiijo xumo keeni doonta hadday lacag noqoto ninka lacagta marka hore lagu dooranayo deyn buu wadanka gashay deyntiisa soo ceshanaya